senatarka ee ismaamulka Mandera Mudane Cali Ibrahim Roba ayaa waxa uu falcelin ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray xildhibaanka bartamaha magaalada Garissa Mudane Meja Deqow Mohamed oo maalintii shalayto socdaal ku tagay ismaamulka Mandera kaasi oo uu sheegay in xisbiga UDM uu xal u ahayn shacabka ku dhaqan gobolkan waqooyi bari. Mr. Roba ayaana waxa uu sidoo kale ka falceliyay hadalka Meja Deqow oo ahaa in xisbiga UDM uu iska dhigo xisbi ballaaran oo weyn sidoo kalena laga cabsado ama meelo fara badan oo ismaamulka Mandera ay u xoreysan tahay hadda laga bilaabana ay cagta marin doonaan. balse Mr. Roba oo arintaasi ka jawaabay ayaa waxa uu sheegay in xisbiga UDM uu yahay xisbi saameyn fara badan ku leh gobolkan waqooyi bari. Waxa uuna tusaale ahaan u soo qaatay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday ismaamulkan Garissa oo xildhibaanka bartamaha magaalada Garissa ay ku tartameen Mr. Deqow Mohamed iyo waliba sidoo kale siyaasi ka socday xisbiga UDM oo uu ahaa Nasir Mohamed Dolal. Captain Senator Cali Ibrahim Roba ayaana waxa uu sheegay intaasi ay cadeynayso xisbiga UDM oo shacbiyad aan ku lahayn ismaamulkan Garissa ama xafiis aan ku lahayn oo ay ka soo bilaabeen tartanka meel eber ah ama zero ah sidoo kalena 47% codadka ay heleen. Cali Ibrahim Roba oo dhanka kale ka sii hadlayay siyaasiyiinta ama xildhibaanadii shalay ku tagay ismaamulka Mandera dhaleeceynaya xisbiga UDM ayaa waxa uu sheegay in ay u muuqdaan dad siyaasad ahaan fashilmay oo aan soo laaban karin sanadka 2027 doorashada dhacaysa balse ay ku mamarsiyoonayaan wajina kaga raadsanayaan xisbiga UDA si ay boosaskooda u xaqiijistaan. waa sida uu yiri senatarka ismaamulka Mandera Mudane Cali Ibrahim Roba. dad fara badan ayaana aragtiyo kala duwan ka bixinaya xisbiga UDM iyagoo dadka qaarkood ay soo jeedinayaan in dawladda uu hogaamiyo madaxweyne William Arab Samoei Ruto loo baahan yahay hal xisbi inay noqoto oo si khilaafka iyo waliba sidoo kale isdhaxyaaca meesha looga saaro taasi oo saameyn ku yeelan kara habsami u socodka dawladda. halka dadka qaar ay qabaan in xisbiga UDM uu yahay xisbi matala gobolkan waqooyi bari loona baahan yahay in siyaasiyiinta ay ku wada faylaan. arintaasina waxa qaba siyaasiga lagu magacaabo Cadow Jubbad Khalil oo isaguna ku soo qoray barta uu ku leeyahay Facebook. waxa uu sheegay in xisbiga UDM uu yahay xisbi ay leeyihiin shacabka ku dhaqan gobolkan waqooyi bari ama ku abtirsada gobolkan waqooyi bari loona baahan yahay in la raaco. arintan ayaana waxa laga hadlayaa baraha bulshada. senatarka ismaamulka Mandera Mudane Cali Ibrahim Roba ayaana waxa uu wacad ku maray inuu sii xoojin doono baaxadda xisbiga sidoo kalena uu ku ballaarin doono qaybo kamid ah gobolkan waqooyi bari gaar ahaan ismaamulkan Garissa oo uu sheegay in haddaba xisbiga UDM ay ku leeyihiin mudanayaal ka tirsan aqalka golaha hoose ee baarlamaanka ismaamulkan Garissa sidoo kalena doorashada dalka ka dhacaysa sanadka 2027 ay u tartami doonaan kuraasta kala duwan.